qisadaas inaan idinla wadaago dhibaatooyinka leh oo ilaa 4 qiso aan ku soo gaabsanay ama 5 qiso أنا أملا بالشوق عمل لينك يسوع دعي وأنا بكفص قولي أنا الباب لهنا وكفص waxaan caawa ku bilaabaynaa sheekadeenna hooyo ayada oo umulan 1 bil ama 30 beri uu nin ugu soo dhacay gurigii ay deganayd kadibna uu ku kufsaday kadibna ka codsanaysa Soomaalida inay codkeeda meel walba gaarsiiyaan waxana loo qabto. hooyadaasi waxay degan tahay meel buul ah oo aqal Soomaali ah waxayna Soomaali weyn ka codsanaysaa in wax loo qabto. waad garanaysaan hooyo umushay oo foolatay oo laga yaabo inay baadiyaha ku dhashay dhaawac badan soo gaaray haddana nin aan u naxariisanaynin kufsi markuu ku sameeyo. hooyadaasi ummadda Soomaaliyeed waxay ka codsanaysaa inay u gargaaraan oo ay garab qabtaan. bal aan dhagaysanno markay ka sheekaynaysay kufsigii loogu geystay gurigii buulka ahaa ama aqal Soomaaligii ama aqal hoorigii loogu geystay ayada oo dhalan ama ay dhashay بالشوق عمل لينك يسوع دعي وأنا بكفص bal ila dhagayso. waxaan u malaynayaa inaad dhegaysatay marka ay ka sheekaynaysay qisada. waxaad kalood ila dhegaysataa ood ila dhugataa mar labaad sheekadii ay ka sheekaynaysay hooyadaasi oo ruux weyn ah runtii mayna ahayn gabar yar qof yar mayna ahayna waxay ahayd hooyo weyn oon aaminsanahay hadduu ilaahay siiyey ilmo badan inay dhashay. hooyadaasi waxay sheegaysaa oo inala wadaagaysaa inaan u sheergarayno fiidiyowga iyo codsigeeda oo ummadda Soomaaliyeed qalbiga jabku soo gaaray ee qalbi jabku ku dhacay inay kabaan oo waxay u heli karaan ay u soo taraan. dabcan mayna sheegin waxay heli karaan laakiin ii sheergareeya hadday tiri waa inay cadaalad hesho kow haddana ay hesho dhaqaale iyo waxay bal dhibaatada xogaa ku ilowdo. asbaabaha keenayana waxa weeyaan hooyooyinku saad og tihiinba ama dadka baadiyaha ku nooli rafaad iyo gaaji iyo silic bay la nool yihiin oo inta badan xataa xoole geel iyo lo iyo ariba qabaan inta badan dhibaatooyin iyo baahi badan ayay la nool yihiin. walidaalika baahidaas ay la nooshahay hooyada in laga caawiyo ayay codsanaysaa. intaasi waa qaybtii koobaad iyo hooyada warbixinaan ka samaynaynay. waxaad ila fiirsataa ayada oo muuqaalkan in la ii sheelgareeyo waxaan ahay hooyo Soomaaliyeed oo dhibana oo lagu qabsaday. bal ila daawo. waxaan filayaa waad ila daawatay fiidiyowgii ay ku codsanaysay in loo sheergareeyo. qaybta labaad een u gudbayna waxa weeyaan hooyo duq ah oo aad u weyn oo da'deedu aad u weyn tahay oo runtii xaqiiqatan aad la yaabaysa da'deedu inta ay dhan tahay hooyada ayaa waxay sheeganaysaa nin askari ah inuu kufsi u geystay xilli habeen ah oo dadkii hurdaan oon dadkii soo jeedin isagoo handaday markii hore. hooyadaasi runtii xaqiiqatan hunguri inuu ka qabto oo qof macquula hunguri ka qabta iska dhaafee waa qof da'ah oo runtii xaqiiqatan markaad ag maraysa ama aad aragtaba aad la yaabayso runtii xaqiiqatan oo da' weyn ah. hooyadaas bal ayadoo ka sheekaynaysa kufsigii uu u geystay ninka iyo cabashadii dhawaaqay muujisay iyo waryaa waray waa injiiliyaay iyo hadalladii ay ku dhawaaqday iyadoo sheegaysa bal ila daawo. haddii aad ila daawatay hooyo iyo maamada weyn ama duqdaa weyn ama hooyadaa weyn dhibaatada loo geystay iyo sheekaday ka sheekaysay iyadoo welibana sheegaysa ninka u geystay inuu ahaa ninkii qaranka tuutaha u xidhay ee labiska u qaatay
bal waxaad kalood ila dhegaysataa gabadh ama gabadha iyadu dhashay oon dhihi karna ayada lafteedu waa maamo zaa'id u weyn oo aad u weyn, bal warbixintay ka bixinayso iyo hooyadeed markuu ninku xambaartay ee meel uu geeyey ee kufsiga uu ku sameeyey waayeen, qaabkay u waayeen iyo markii dambe qaabkay u heleen nin garaashkiisii iyo meeshii baabuurta uu ku samayn jiray furanayay inuu aroortii yidhi hooyadeen halkanay joogtaa kadibna ay sidaa ku heleen. bal iyadana warbixinta ayna siinayso dhegayso. waa dhegaysatay walaalkay ama walaashay, waa dhegaysatay warbixinta ina siisay gabadhaasi oon gabadh hooyadeed baa nool oo gabadh ay u tahay, laakiin waa hooyo ayadana kale oo da-ah oo da'deedu ayna yarayn. qisada saddexaad een idinku xijisiinaya waxa weeyaan hooyo aad u da'weyn oo runtii nin kufsi uu u geystay. kufsiga markuu u geysanayana qaniinyo uu cududda iyo halkaa muruqa ahee weyn uu ka qaniinay, oo nin walaalkeen ahoo jannaaley ah oo youtube halkaa idin muuqatad arkaysaan halkaasuu ka qaniinay si ay ugu suurto gashay inuu kufsado maamada. waa 70 sano oo balila fiirso. waxaan u malaynayaa ayadana inaad aragtay. waa hooyooyin wada waaweyn oo runtii xaqiiqatan qof caqli iyo maskax leh hunguri uuna ka qabanaynin. waan aad baan u yaabanahay, war gabdhaha yaryar waaba la gartay, laakiin gabar yar oo foodley ah ama hooyo da'daa dhan ninka uu hunguri ka qabanayo, ama hooyo umul ah oo umushii ku jirta. dhanka kale qisada afraad een idinku daraya maanta waxay tahay gabadh shalayto ilaa maanta social mediaha dhex wareegaysay oo kilib kalena aan ka sameeyey, laakiin aanan muuqaalkii soo bandhigin arrimo cillado ahoo jiray aawadood. gabadhaas waxaa dulmiga iyo dhibka u geysanaya haddaad hadda ka hor arki jirteen hooyooyin iyo gabdho ay rag kufsadeen oy dhibaato u geysteen. gabadha waxaa dhibaato u geysanaya u shaqaynayso ilaa 2 ah. waxaa ka ag hadlaya qof aan u malaynaya gabdhaha hooyadood iyo waalidkoodii inuu yahay oo dhahaya war ciqaabtan iyo dhibkan ka daaya. gabadha sidaan hadda ka horba ka soo sheekeeyey 5 arrimood bay ku sameeyeen oo 5tuba midiba midda kale ka daran tahay. midda koowaad ay ku sameeyeeni waxay ahayd gabadha inay jir dileen, kadibna ay rooti dhintay siinayaan, uguna darayaan sun iyo daawo. dadka qaarkoodna ay dhahaan markay si fiican usii dhegaysteen waxani waxa weeye waa kolgeed lagu cadaydo ee ilkaha dadku ku cadaydaan ayay ugu darayaan rootiga, ayagu daaway ku magacaabayaan. qaybta labaadna waxa weeyaan ay dhibaatada ugu geysteen gabadha inay caano dhintay oo baq ah, ayaguba say sheegayaan dumarkood hadalkooda ka maqlayso caanihii baqa ahaa inay leeyihiin cab oo ku cun rootiga. qaybta saddexaad ay gabadha ku sameeyeen waxa weeyaan inay dhalooyin intay jajabiyaan oo saxan dhalo oo jajabaysaad arkaysaanba inay dhahaan saxankan dhalada ah jajabkiisa iyo waxan ku cun. hooyaduna ka garab hadlaysa aan u malaynaya gabdhaha hooyadoodu inay tahay ama qof weyn oo la jooga ay leedahay iyo inay idinku dhimanine ka daaya. arrinta afraad ee dhibaatada leh ay gabadha ku samaynayeeni waxay ahayd gabadha miskiinta ah ee dadku leeyihiin oromay ahayd ama lahjadeeda saan ka dareemaynay. waxay ku sameeyeen inay dhuxul iyo dambas intay u soo dhigeen ay dhaheen rootigii ku cun, welibana dhuxushu ay noolayd oy leeyihiin rootiga ha gubin. waxaan dhibaatada dhuxusha iyo dambaska ay ku cun leeyihiin way kulul yihiin sida hadalkooda aan ka dheehanayno. arrinta shanaad ay ku sameeyeen gabadha ee dhibaataday u geysteen waxay ahayd gabdhaha ama hooyooyinka ama dadka ay u shaqaynaysay dumarkii waxay ahayd inay rootigii u dul saareen dacsadda iyo waxyaabaha kabaha markii dadku ay iska bixiyaan ee guriga soo gelayaan albaabkiisa qashinka iskaga reebaan ee la dhigo si ay
uga reebto qashinka ayay u dul saareen. waa ciqaab adduunya midii ugu xumayd ama qof bini aadam ah loo geysto, muslim iyo gaal midkuu dooniba ha noqdee. runtii xaqiiqatan waa dhibaatooyinka adduunka ka dhacaya maanta dhibaatooyinkii ugu adadkaa ee ugu foosha xumaa baan dhihi karnaa. dhibaatada gobol Soomaaliyeed oo dad muslimiin ah ay degan yihiin, gabdho muslimiin inay ku sameeyaan gabarh ayaga lamid ah oo muslimad ah. waana asbaabaha keenaysa dumarku in badan oo ka mid ah dulmigaasay isku hayaan. dulmiga ay isku hayaanna ayagana ilaahay inuu dhibaato iyo dulmi fara badan ku soo rido oo ku keeno. oo waxaa la isweydiiyaa gabdhahan maalin walba la dhibaya maxaa loo dhibayaa? ayagana kuwoodii kale ee guryaha kula noolaa ee shaqaalaha u ahaa ayay dhibaato u geysanayaan iyo mushkilado iyo wax aan laga soo waaqsan karin. caqligu waxaa la rabaa inuu shaqeeyo. waxaa tan ka sii horraysay gabadhii aad ogeydeen ee rajada ahayd aabbaheed wuu noolaaye. gabadhaas ay dowladda Somalilan ay garab qabashadii iyo waxbarashada u fidisay gabadha yarta ahayd, islaantii intay filimka ka duubtay ama kilibka ka duubtay ama fiidiyowga ka duubtay dhahaysay waad isixiraysaa. yaa iisoo kaa diray? waaba la iisoo kaa diray. ma waxaa lagu yidhi soo dil islaantan miyaa lagu yidhi? runtii xaqiiqatan arrin la yaab leh ayay ahayd oo qalbiga dhaqaajisay, ummadduna ay u wada istaagtay ilaa gabadhaas ay ka heshay garab istaag, ayadiina ciqaabtay mudnayd iyo waxay dowladdu ka mudnayd la mariyey. waxaan idin weydiinayaa, kuwii la soo duubay ay gabdhuhu soo duubayaan ay dhibaatada u geysanayaan bay inoo soo bandhigeene, bal ka warrama kuwa ay dhibaatada guryaha ugu geysanayaan ee aad u fara badan ee shaqaalaha u ah ayna soo bandhigaynin inay waxba ka soo duubaynin. xaalkoodu suu yahay? tiradoodu intay la eg tahay? dhibaato intay la eg baa loo geystaa? toloma waxaa la cunsiiyaa saxarada bini aadamkaa la cunsiiyaa, mise dhibaatooyin ka sii fara badan intaasaa loo geystaa? runtii xaqiiqatan waa arrin la yaab leh. caawa marka waxaan rabaa qisadaas inaan idinla wadaago dhibaatooyinka leh oo ilaa 4 qiso aan ku soo gaabsannay ama 5 qisoba gaaraya.